dad badan oo Soomaaliyeed oo jiilka maanta ayaa laga yaabaa inayba garanayn buurta Karamardha ama kaliya ay magac ahaan u maqleen inkastoo kuwa badan oo dhacdaas goobjoog u ahaa ay weli nool yihiin. Karamardha ama Karamara waa dhul buuraley ah oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Jigjiga, waxaana Karamardha ay saldhig weyn u ahayd ciidamada Itoobiya. bishii Oktoobar 1977 ayay ciidamada Soomaalidu qabsadeen magaalada Jigjiga iyo buurta Karamardhaba. Mangiista Hayle Maryam madaxweynihii dalka Itoobiya ee xilligaasi filanwaa ayay ku noqotay arrintaasi. ciidamada Itoobiya jab weyn ayaa dagaalkaasi ka qabsaday, waxaana looga qabsaday 75 taangi oo ciidamada Itoobiya ay ka carareen halka askar badanna looga dilay. ciidamadii Soomaalida ayaa dib looga saaray bilowgii bishii Maaj sanadkii 1978 kadib markii ay dagaalka soo galeen ku dhawaad 16,000 oo ciidamo Kuubaan ah iyo 1,300 oo ciidamo iyo la taliyaal Ruush ah. haddaba sida ay ciidamada Soomaalidu ku jireen Karamardha waxaa sharaxaya Allah u naxariistay General Maxamed Cali Samatar wasiirkii difaaca ee waqtigaasi. isma ayan lahayn Itoobiyaanka Karamardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan, isma ayan lahayn. dagaalka Jigjiga aad buu runtii u adkaa qallafsanaa. baan xusuustayda dib ugu noqdo 14 casho ayuu nagu qaatay Jigjiga inaan ka takhalusno. Jigjiga waa dhaafnay, waa la wada ogyahay. Harar markaan marayno ayaa ay noqotay inaan ka soo oo ciidamo kale iyo awood laga badan ay soo gashay meesha. lagama maarmaanay noqotay ka soo saaro ciidamada Mali. 42 sano kadib dhacdadaasi waxaa dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa lagu qabtay xusas lagu maamuusayo askartii dagaalkaasi lagu dilay ee Itoobiyaanka ahaa, iyada oo qaarkoodna taalooyin looga dhisay. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in askartaasi ahaayeen shuhado Karamardhana dhawaan laga taagayo xusuusahooda. arrintaas waxaa aad uga carooday dadka Soomaaliyeed ee ku nool dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana ay sheegeen in dagaalkii 1977 uu ahaa mid halgana isla markaana Soomaalidu ay xornimadooda ku doonayeen. qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Jigjiga ayaa haddaba cabiraya dareenkooda arrintan. Abiy Ahmedna waxaanu leenahay waxa aad tidhi waxba kama jiro, waad ku fashilantay, ka laabo, apologies ka bixi, arrinta ayadaa waad ku dhacday. Abiy Ahmed arrintaa waad ku dhacday. halgankaas wuxuu ahaa halgan Soomaaliyeed oo Soomaali galbeeda ayuu ahaa, waad ku dhacday baanu ku leenahay. ka laabo, haddaad ka laabo weydaan faraad kaga gubanaysaa. gumaysaha waddanka haystay ilaa Hayle Silaase ilaa Miliq waddanka waa la gumaysanayay. marka imika waa laga baxaa la islahaa oo Itoobiya sinaan bay ku wada soconaysaa baa la islahaa. inay sinaantii ku wada socotana uma ega, waxay u eg tahay in la soo celiyey dhargigii iyo Miliq in la soo celiyaad moodaa oo noona cadimka sidaasna si Soomaali u dulqaadanaysa ma aha. marka waxaan leenahay Abiy Ahmed ha ka laabto, ummadan la baabi'iyeyna raaligelin ha ka siiyo, dibna ha uga noqdo, haddii kalese boog buu milix ku shubaleeyaan. wasiirka howlaha guud ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa wax laga xumaado oo aan la aqbali karin ku tilmaamay in madaxda Itoobiya qaarkood ay sheegaan in Karamardha taalo looga dhisayo Itoobiyaankii lagu laayay halkaasi askarta ahaa, waxaana uu sheegay in la isweydiinayo hadda cidda mudan in taalo looga dhiso Karamardha, Soomaalida mise Itoobiyaanka. waxyaabaha moogtahay context hadda markaan ka hadlayno waa muhiim. waxaan kale oo dhan waxa aniga igala muhiimsan taariikhda. hadda Karamardha, buurta Karamardha, dad qowmiyado waddanka nala sheegta oo waddanka nala leh oo Axmaar la dhaho oo Jigjigana la degan baa jira. waxay dhaheen Karamardha taalaha laga dhiso. macnaha waxyaabaha la dhahayaan idin sheegaya. dee taalada Karamardha laga dhisay yaa loo dhisay? ma ninkii Soomaali galbeed xuquuqdiisa raadinayay baa loo dhisay mise waxaa loo dhisay ninkii dulsinayay? macnaha horta waxaad ogaataan anu kursigan waxaa way danka ma lihi, waana ka tegi doonaa. ilaahay baana mahad kule inaan mar helay. madaxda Soomaaliyeed ee arrintan sida weyn uga carooday waxaa ka mid ah madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, kaas oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uga digay inuu dib u soo faqo dhibaatooyin horey u soo maray geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida iyo Itoobiyaanka. madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya midna weli kama hadlin arrintan iyo hadalkan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya.